هذا واحد شغلنا mid ka mid ah deegaamada hawdka ah ee gobolka Dhugaal dabcan waxaan aragtaa waxa ku jira caano saaka meel lagu shubay saxaabay saaka roorta lagu shubay caano riyaad iyagoo dhanaan baa halkan lagu shubay kadibna maanta duhurkii baa saaka roorta la lulay maanta duhurkii la bixiyay bal aan idin kala dhabaxo maam adoo magaca ku bilaabay bal dadka aan aqoon u sharax bal waxa halkan ku jiray waxa yihiin sida loo sameeyo halkan waxa ku jira caano lulay iyo laga lisay iyo doobi shay lagu shubay baa doorta kornaan baa la lulaa marka haddana lagu shubo waa la lulaa waa la bixiyaa marka subag baa laga baxaa marka sidee baa subagaas loo sameeyaa caano markay noognahay hore waa caadi dhanaan bay noqdaan waa la cabaa subagna kuma jiro subag intee ka yimaada waa lulaa waxaan kaasa subag ka sameysmaya subagaas marka sidee loo galaa maxay faa'iido leeyahay waa shiilanaa waa la shiilaa macaaniyada ka bixiya caaniyadu markay maxay tahay waa caanihii ka saweeyay subag ka soo marka intaysa subag noqon marka la soo bixiyo oo caanihi laga saaro maxaa loo yaqaanaa racad markii la shiilana waxa uu kala baxayaa subag iyo caanihi marka caaniyada waa la iska daadiyaa waxa la helaa subag subaga marka wuxuu faa'iido leeyahay ma la cabaa ma la gataa suuqa hadii laga qiimo ma leeyahay waa tahay bal hadda waxaan ka codsanaynaa inaan noo furtid oo bal aragno hadda waxa ku jira saa u jeedaan bahaanta afkeeda waxaa ku xiran xargo oo isu haya iyada iyo saabkeeda ningax waxa la dhahaa afka kaga sii xiran oo caanaha celinaya soo ningax maahan kan muxuu yahay kan waa ningax kana maxaa la dhahaa magaciisa haruuk agaan baa la dhahaa haanta afkeeda isu celinaya kaasoo loogu xiraa marka caanaha lagala baxo maasha allah waa tahay waa aragtaan caaniba hadda cabaynaa caanahan dabcan iyagoo la bixiyay baa anagu reer ka soo gaarnay oo waa la bixiyay waa aragtaan subagii waa laga saaray laakiin waa arki doonaa bal subagii iyo qaabka uu noqday waa dhanaan badan yahay